daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka daqiiqadaha wararka ee fiidnimo. Taariikhdu waa 18 November 2023. Qodobada aad warka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah buundadii Beledweyne oo laga cabsi qabo inay go'do. ani markan soo maraa dadka isku qalbi ma moogtaa cabsiyaan ku soo maraa dadna way saarsaarinyihiinoo waxaad moodaa in hawl la'aan iska saareen laakiin buundada inay jabtay halis u tahay shufto qof naafa ah ka dhacay lacag tiro badan oo maanta la soo taagay maxkamad ku taala magaalada Muqdisho. Taleefan ii dhiibay lacag 600 hormuud ka soo bixiyay oo xamrweyni meesha ba taagnaayeenba bis waa soo raacnay fiiro ma imaanay ninkii aqaanay taleefanka ay ka rabeen oo gidrib waa xirnaa taleefan ee macquul ay rabaan oo waayeen 14 nooc kale rabeen dabkii suuqa xamrweyne oo la sheegay wixii uu ka kacay dabkan run ahaantii waxa sababay waxa waaye koronto uu ka dhashay waaye qor yar oo waxba ahaan oo ka bilowday wixii meel yar harqaan u ahaa marka wixii waa iswada raaceen wax amar ilaahay wado waxa waaye cidna ma celin karto guddiga doorashooyinka Puntland oo shaaciyay jadwal cusub doorashada ka hor sida jadwalka ka muuqata ama aad ka aragteen waxaa jira shaqooyin muhiim ah oo ay ugu horeyso shaqada wacyigelintu oo ay ku xigto shaqadii diiwaangelinta si ay fursad u helaan muwaadiniinta reer Puntland oo aan fursad u helinin diiwaangelintii hore si ay u codeeyaan ama ay u xaqiijiyaan xaqooda muwaadinimo ee ah inay doortaan madaxdooda mustaqbalka. burka dariimeed oo ay muddo ka fidsaneed gogol nabadeed horena ay dawladdu u geysay ciidamo booliis ah ayaa hadda waxaa la geeyay garsoor iyo maxkamad. Wasiir Bayna waa wasiirka qorshaynta oo sheegay in aan loo war la'aan in ay bishan ku biirayso Soomaaliya ururka bulshada bariga Afrika. qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin haynaa ku soo dhawaada warkii oo fidsan. buundadii Beledweyne oo isku xireysay gobolada waqooyi iyo kuwa koonfure ayaa laga cabsi qabaa inay go'do kadib markii ay ku soo ekaadeen daadad aad u fara badan korkana ay ka fuuleen. waa kuwan dadka shacabka oo muujinaya cabashadooda iyo cabsida ay ka qabaan inay buundadu go'do. buundadan waxa waaye meel dalxiis loo yimid meeshaan ma ahan dadkaan aad u jeedin dad meeshaan dalxiis u yimiday ama inay ku dabaashaan daacsi noocaas dad u yimid meeshaan ma ahan dadkaan waxa waaye waa ku dhibban yihiin meeshaan hadda qallayl oo biraha korkooda la saaran yahay ayaa dadku ay naf moodaan meesha hadda macnaha dooman gurmadaha yimaado oo dadka ka samata bixiyo gurmada ayaa meesha yimaado waaba hadii la helaba ayagaas naftooda si lagu helo adag tahay marka doomankii kaleeto oo hayduhu ay bixiyeen webiga ku jiraan kuwaas meydad iyo waxa webiga ku dhacay waxa go'doomay raadiyaan kuwaas buundada culays waxaba ugu filan biyaha saarana ugu filan biyaha hadda ayada korkeeda saaran ani markan soo maraa dadka isku qalbi ma moogtaa cabsiyaan ku soo maraa dadna way saarsaarinyihiinoo waxaad moodaa in hawl la'aan iska saareen laakiin buundada inay jabtay halis u tahay dhanka kale xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda Hiiraan ayaa la hadlay warbaahinta waxay qayladaan u direen dawladda federaalka ah adduunka iyo ummadda Soomaaliyeed waxay ku baaqeen in aan la iska iloobin lagana daarin reer Hiiraan. waa kuwan iyagoo hal kelimad waxaan dhihi lahaa ciidanka Soomaaliyeed ama booliis ahaado ama military ha ahaado ama nabad sugid ha ahaado ee gobolkaas joogo ummadiina rafaadsan hoostiina yaa lagala bixin wixii yaraa ee loogu talagalay maanta reer Hiiraan hadaatiin ciidanka Soomaaliyeed oo nooc walba ah waxay idinka baahan yihiin hiilku wax kala ma aha wixii loo keenay yaan gacnooda laga maroojinaya laga maray habaabin intaasaan ciidanka Soomaaliyeed meel kastuu joogo kula dardaarmaya waa mahadsantiin mar labaad xildhibaanada aad u mahadsantiin. rag qaalin shubata ah ayaa qof naafa ah ka dhacay lacag aad u fara badan oo gaaraya $5,000 kadib markii ay ka soo waceen taleefankeeda gacanta. raggan oo si xilla wax isu daba mariyay isla markaasna lacag aad u fara badan ka shubtay ayaa maxkamad la soo taagay. taleefan ii dhiibay lacag 600 hormuud ka soo bixiyay oo xamrweyni meesha ba taagnaayeenba bis waa soo raacnay fiiro ma imaanay ninkii aqaanay taleefanka ay ka rabeen oo gidrib waa xirnaa taleefan ee macquul ay rabaan oo waayeen 14 nooc kale rabeen sidii aan marka dabka ka doonayna waa sidii ugu sii gudbo falkan ku galay marka meeshii tagay ninkan meesha galeen application-kii iyo wixii waxa dhaaniyow meeshan taleefanka ka rabno application-ka uma furno
raggan application ka ma haystaan lacagta application ku jira waa alla soo sarif ay abooda ninka jugto horta si dhameystiro lacagta soo qaad waa xarunta ma ka qaadataan dhaatan waa xirantay xaruntii furan tag waa tareebiyaanatay كشيركا وحده لعقتان ugu soo tuurayo maxaa laga soo tuuraya yaa ninku soo tuuraa mataqaanaa waa ninka waa aqaanaa waa maxaa lacagta application laga soo tuuraya wada waafi laga soo tuuraya waafi laga soo waafi ma aha ragi waa marka waa wacay ninka ugu dhiib ninkan waa fahmay naqshada oo jaray Ahmed ninkaan oo numberkiisana ma helin aqoon habeenkaas ay ugu horeysay oo Ahmed ku la socday meesha waxa dhaaniyo ninka cashiirka la hadlay ragaan meel ay joogan dukaanay hadda taagan yihiin ku geenaa nabad ma laamaha amniga taas ku raacaysa waxay isku tahay oo aan meel ilaa hadda lagu sheegin $5,763 ilaa 25 senti waa kuwaan mudane gudoomiye labada warqadood warqadii hore oo markii hore dhaqdhaqaaqa oo bangiga account ay ku leedahay dhibana Faadumo iyaga oo kala sheegaya lacagta available ka hadda ku jirta dhaqdhaqaaqi ay sameeyeen iyo tirada guud ee awal ku jirtay iyo inta aan ka maqan oo meel lagu sheegin waxna waa la hayaa oo ka sheehaayeen waa kuwaan mudane gudoomiye $1,220 ee xafiiska xiraalinta marag muujinaanta loogu soo wareejiyay iyaga oo markii ay qaateen kadib isku sawiraya oo adeegsanaya kuwan gudoomiyaha degmada Xamarweyne oo warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay in uu dabkii suuqa gubay ka kacay koronto ma xaqiijin khasaaraha saxda ah ee ka dhashay dabkaas dhanka kale wuxuu sheegay in aysan jirin wax dhimasho ah ee ka dhashay dabkaas waa kan gudoomiyaha oo hadlaya gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha xigeenada agaasimayaasha dhammaan ayagana waa mahadsan yihiin boqolkiiba waaxda gaadiidka oo ilaa ay xalay 10 saac ka shaqeynayay damintooda iyadana aad ugu mahadcelinaa sanad مية خسارة نفد مجرو الحمد لله إلهي ونوبة بعد تاس وحجر وحواي خسارة هنت بربرد خسارة سؤال لسوكو بكرن ويران وحار كيسا بقلال روح ماش بقول أحسن يسي بقلال روح مركا أركتو في ميلا بدنا كنول في ميلا داس وحار أركيسا أنت سو كن في ميلا خوديان مرك واحد سوكو بكرما هوايدا ويران ماشا يعني إذا كو قدنا يسو وما أنت هفضل لبضر عدة أورا سنيسو إنكي ما أنتي أو باقي خلاها كذا يكو موس كذا يكي برفون كذا كل إسكود مدة ما أنت كوديين أنتوا وابا بعضي إلهي هؤلاء بدنا ما لنا هاي لما أنتوا ذن وحنا رجينا واحد بدل الخرب أنا ينوسيه دب كان رهانتي واحد سوى وحواي كرنتو وكل شيء واي خير أو واحد هنا وقبل لاودي وحي مالي رهر خان وها مرك وحي وعس وراعين وح أمر إلهي وضم حواي عندنا معلن كرتو guddiga doorashooyinka Puntland ee Beck ayaa ku dhawaaqay in ay bilaabayaan wacyigelinta dadweynaha isla markaasna ay ku xijin doonaan diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashada ka hor sida jadwalka ka muuqata ama aad ka aragteen waxaa jira shaqooyin muhiim ah oo ay ugu horeyso shaqada wacyigelintu oo ay ku xigto shaqadii diiwaangelinta si ay fursad u helaan muwaadiniinta reer Puntland oo aan fursad u helinin diiwaangelintii hore si ay u codeeyaan ama ay u xaqiijiyaan xaqooda muwaadinimo ee ah inay doortaan madaxdooda mustaqbalka inta kadib waxaanu halkan maanta u joognaa oo shirkeena ka soo baxday inaan ku dhawaaqno bilaabidda shaqadii wacyigelinta oo maanta oo laga bilaabo wixii ka dambeeyo guddiga iyo xisbiyada siyaasadda oo iskaashan doona iyo hay'adaha bahwadaagta la ah ee ka shaqeyn jiray arrimaha wacyigelinta aanu halka kaga dhawaaqno si rasmi ah anagoo oo wada jira inay noo bilaabanayso shaqadii wacyigelinta arinta labaad waxa weeye inaanu mudayno oo ku dhawaaqno taariikhda ay bilaabanayso oo la bilaabayo furista ama dib u furista diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaanu isla garanay 16 bisha December ama bisha 12aad ee soo socotay inuu ku soo aadan oo 12 bari kadib inoo bilaaban doonta inay noqoto maalinta aynu dah furayno ama ay noo bilaabanayso dib u furista waxa la yiraahdo diiwaangelintii waxaan rabnaa halakan inaanu bulshada kala socodsiino ama fariin dhameystiran aan u gudbino in loo diyaar garoobo shaqooyinkaas aanu ku dhawaaqnay oo si wada jira aanu halkan uga dhawaaqayno loo diyaar garoobo cid kasta oo aan awal fursad u helinin
in ay u diyaargarowdo sidii ay fursaddaas uga faa'iidaysan lahayd. Horey waxaa jadwal dhinacooda ah u shaaciyey mucaaradka Puntland waxaa ka taagan khilaaf doorasho oo cirka isku sii shareeraya. 24 saac ee la soo dhaafay madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in uu wada hadal ka gelayo sida ay wax u socdaan iyo arrimaha wasiirka qorshaynta ee Soomaaliya Bayna ayaa sheegay in ay Soomaaliya bishan ku biirayso ururka bulshada bariga Afrika. Sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyay waxa ay ka faa'iideyso Soomaaliya ururkaas haday ku biirto. Waa kana wasiirka oo hadlaya. Soomaaliya waxay ku biiri doontaa bishan dhexdeeda idin Allah sidaan rabna hadii u dhacdo EAC ama East African Community bahwadaagta East Africa laba maalmood ka hor aniga iyo madaxweynaha wafdi hogaaminaya madaxweynaheena anigu qayb ka ahaa waxaan ka soo laabanay wadanka Burundi caasimada Bujumbura waxaan halkaas kula soo kulanay madaxweynihii Burundi oo gudoomiyaha East Africa Community wadamada la isku dhaxad ka ah gudoomiye ka ah oo aan shir hordhac kaga ahaa shirka 24 madaxweynaha u tagi doona Arusha aan kaga qayb galnay meeshaas Soomaaliya insha Allah idin Allah sanadkan oo dhan waxa laga shaqeynayay sidii qayb ugu noqon lahayd East Africa Community rajadaasna aad iyo aad u fiican tahay inaan ku guuleysanayno u badan tahay inaan qayb ka noqono oo wadanka sideedaad oo East Africa Community ku biiri doono wadankaas hadaan ku biirno oo aan qayb ka noqono idin Allah bloggers waxyaabaha laga faa'iido doono waa economic blog waa ganacsi dhaqaale ugu xoog badan trade-ka Soomaaliya sida ogtiin anagoon ku biirin baan si voluntarily waxa u buuxnaa oo aan maal gashanay Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda, Sudan waxaan oo dhan waa aragteen so literally marka dadkeena dhulkaas ay ku faraqsan yihiin wixii faa'iido ah ee ay leedahay heshiiskan dadka ka faa'iido doona markay noqoto dawladda Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed number 1 ay u tahay golaha guurtida Somaliland oo uu maanta hareeyay buuq aad u fara badan ayaa wali xal u la khilaafka doorashooyinka guddi ayaa maanta loo saaray khilaafka doorashooyinka si uu uga soo tala bixiyo xeerkan ka soo gudbay golaha wakiilada check and balance waxa la yiraahdo isuleeyay isna sax waxan ma aha quraan samaawiya mana aha xadiiskii nabiga sidaa daraadeed waxaan soo jeedinayaa nuxurka kelmadeyda soo koobaya wax badan oo ku dhex jira oo xeerkii mustaqbalka ummadan ee doorashooyinka runtii la taataabtay maadaama aynu guurtu nahay aan dhayl inagu dhaafin wadankana duruufo badan baa jira guddi ha loo saaro markaana dowlad deegaanka daawadayaal maxaad kala socotaan taariikhda degmada Shilaabo odaygan ayaa nooga waramaya dhageysi wanaagsan waxaan ku noolahay degmada Shilaabo magaalada asaaskeeda haddaad la weydiiseen iyo goorta la bilaabay degmooy gobolada waaweyn ee hadda sida Goday iyo Qabdahare iyo waxa soo dhan ayada ka horeysay degmi ahayd xilligii Talyaaniga laga dhigay way fogtahay marka xilliga lagu talagalay waa wax fog weeye marka ma nasiib badnaa la dhihi kartaa sababtoo tahay wadankeena oo dhan degmooyin ayada wax kow noqday ayada ugu horeysay dawladdu marka inay aqoonsanaato oo inay abudur tahay in la ogaado yaa fiican midda kale dhulka ay ku fadhido waa dhul ballaaran aad iyo aad u ballaaran oo meel walba waxay u jirtaa 180 baa meelaha qaar inoo jiraan meel walba 180 bay jirtaa 180 xaggaas jirtaa 180 xaggaas jirtaa 125 war dheer baa jira 110 qabri dahara jira dhulka ballaaran bay ku fadhidaa ummadda degtana waa ummad Itoobiya weeye taariikhda ceelka waxaan ka hayaa inuu ceel bahla oo la cabo u ahaa markii hore markii Talyaanigu yimidna uu dhisay tirkada uu dhisay dadka ka cabayay saasaan taariikhda u hayaa haddana matooro ka dambeysay dawladdan dambe ay qotimisay baa jiro oo laga cabo iyo baraaga la samaystay iyo wax saasa laga cabaa dhul beereed ma leh laguma arko dhul beereed waxa u diiday dhulka dhoobeyda biyuhu fadhiistaan baa beeruhu ka baxaan halkan dhoobey ma leh waa dhul ciida oo waxba ka soo baxaynin iyo dhul buura oo waxba ka soo baxayn labada weeye togna ma leh webi ma leh tog ma leh waxba ma leh ceel bay leedahay iyo birkad la samaysto gacanta lagu samaysto labadaas oo waxba kuma waraabaan daruurta maanta la hesho 7 beri bay ku qalashaa ama waxa ku qalashaa 15 beri hadday si kasta u roob badan tahay 15 beri bay ku qalashaa daawadayaal waad ku mahadsantihiin la socodkeena halkaas ayaan ku joojinaynaa qodobada warka
tan iyo inta aan ku kulmayna barnaamijkan mid lamid ah nabadgelyo. faa'iidooyinka adeega e-pesa: send money, dirista lacagaha, withdraw money, bixidda lacagaha, airtime top up, ku shubashada xirmooyinka ku hadalka, e-pesa Pay, lacag bixinta ama tukaamaysiga, loans and savings, amaahda iyo kaydka, e-pesa Global, xawilaadaha, e-pesa Mastercard, Virtual Mastercard, banking service, adeegyada bangiga, e-pesa goor kasta iyo goob kasta. macmiil weli hore ma u maqashay applicationka Banana Pay? haddii aadan hore u maqal, Banana Pay waa mobile money application kuu sahlaya inaad si fudud lacag uga dirtid adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta oo ma baahnid inaad xafiis booqatid. waxaana inoo keentay shirkadda Tawakkal Express oo muddo ku siman 30 sano ka shaqeynaysay nidaamka xawilaadda lacagaha. haddaba halkee ayuu ka shaqeeyaa? Banana Pay waxa uu ka shaqeeyaa dalka Mareykanka, waxaana lacagta uga diri kartaa adduunka oo dhan. Soomaaliya iyo Kenya waxaad lacagta ku diri kartaa adeegyada mobilka gacanta sida Sad, Sahal, EVC Plus iyo M-Pesa Kenya. waxaad sidoo kale ku diri kartaa adeega T Plus, bangiga Sombank iyo xawaalada Tawakkal Express. haddaba ka faa'iideyso Banana Pay oo kuu samaysay qiimo dhibis ballaaran oo ah 20%, waxaana lagugu adeegayaa qiimo jaban.